Salaam saaxiibayaal, inaad caafimaad qabtaan aan rajeynayaa. Intaa kadib, ku soo dhawaada taxanaha dhambaal xalqadiisa saddexaad. Waxaynu xalqadan ku soo qaadan doonnaa muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay leedahay xusidda Eebbe Subxaanahu wa Tacaala. Imaamkii weynaa ee Cabdullaahi bin Cawn, oo ahaa macallinkii Imaamu Shucba iyo Imaam Ibnu Mubaarak, waxa uu yidhi: xusidda dadku waa cudur, halka xusidda Ilaahay Subxaanahu wa Tacaalana ay tahay daawo. Mu'minka maanka ku haya waxa qabriga ku sugaya waa mid ka olola in wakhtiga kaga lumo xilliyada uu cid sugayo meel uu fadhiyo. Waxa uuna xusaa Eebbe Subxaanahu wa Tacaala yaa ka xaalad wanaagsan qofka Ilaahay ku xusaya xaalad kasta oo uu ku sugan yahay, ha fadhiyo, ha taagnaado, ama ha jiifaba. Waana xaaladda Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala uu inoo sawirayo marka uu qur-aankiisa ku dhex leeyahay kuwa Ilaahay xusaya iyaga oo taagan, ama iyaga oo fadhiya, ama iyaga oo jiifa. U fiirso, waxa intaaba ka yaab badan ayaa ah in Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala amrayo inaynu tukano salaad dhammaanteed ka kooban xuska Allah Subxaanahu wa Tacaala. Marka aynu dhammaynana, Ilaahay ina farayo inaynu sii wadno xuska, oo waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay: kolka aad dhammaysaan tukashada salaada, xusa Ilaahay idinka oo taagan, iyo idinka oo fadhiya, ama idinka oo jiifa. Allah ayaan kugu dhaariyey, ka dhigo tusaalahan waano iyo wax aad wax ku qaadato. Bal ka yara fikir oo dib u goco saacadihii ama wakhtigii ku dhaafay, duhurkii maanta, ama casarkii maanta, ama soo jeedkii xalay. Daqiiqadahaas waa kuwa ka dhex baxay oo ka tagay cimrigeenna, ma soo noqon doonaan abid. Bal ka waran haddaynu daqiiqadaha ku buuxin lahayn inaynu Rabbi u mahadnaqno, ama u tasbiixsano, ama ku weynayno, sidoo kalena aan salaada ku tukanno, amaba aqoon fiican oo ina anfacda aan ku baranno si aan muslimiinta wax ugu tarno. Intaa haddaynu ku qaadano waqtiyada aynu waxyaabo kale ku bixinayno, waxay caddayn lahayd wejiyadeenna maalinka adag. Haddiise ay saacadahan inagaga tagaan ciyaar iyo dhayal, maxaynu khasaarnay oo luminay fursad la ina siiyey oo la ina su'aali doono. Saacado oo aynu inagu lahayn ayaa tegey, haa, way tageen oo soo laaban maayaan. Mar kasta oo aad dheehato, dhugato, oo aad dhuuxdo micnaha xaqiiqooyinkan, waxaa ku geli doona ama kaag. Haddaba saaxiibayaal, aynu ka faa'iidaysano waqtigaan hadda haysano, aan badino akhrinta qur-aanka kariimka, salliga nebiga sallallahu calayhi wasallam, bixinta sadaqada, iyo si guud acmaasha wanaagsan ee aynu Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ugu dhowaan karno. Assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatu.